السلام عليكم كسو دوادا قصة رمضانك روح ayaa wuxuu galay masjid isaga oo tuug ah wuxuuna ka soo baxay isaga oo boqor ah waa qiso cajiib ah oo dhaxmartay nin boqor ah iyo wiil tuug ah nin boqor ayaa wuxuu ifka ka qabay hal gabar wuxuuna mar waliba ka fikiri jiray mustaqbalkeeda iyo nolosheeda dambe markii ay gabadha soo weynaatay oo ay soo gaartay xilligii la guursan lahaa ayuu boqorkii wuxuu ku fikiray inuu u raadiyo wiil wanaagsan oo munaasab u ah habeen ka mid ah habeenada ayuu wuxuu u yeeray boqorkii ninkii wasiirka u ahaa wuxuuna ku yiri waxaad tagtaa masjidka waxaadna ii soo raadisaa wiil saacadan salaad u taagan oo ay ka muuqato cibaado jacayl iyo cabsida alle wasiirkii iyo ciidankiisii waxay aadeen masjidka balse ka hor intaysan masjidka imaanin ayaa wiil markaa doonayay inuu masjidka wax ka xado ayaa wuxuu soo booday darbiga masjidka si uu masaajidka wax uga soo qaato isagoo oo gudaha ku jiro oo wax raadinayo ayuu wuxuu maqlay albaabka masjidka oo la soo garaacayo markaasuu wuxuu isiri caawa waa lagu hayaa gacanta ayaa lagu dhigay wuxuu ku fikiray sidii ku baxsan lahaa markaas waxa u soo baxday inuu salaad been ah xirto wasiirkii iyo ciidankiisii waxay soo fureen albaabka masjidka markii arkeen wiilkii oo salaad u taagan ayay waxay yiraahdeen waa midkii uu boqorka raadinayay waxayna bilaabeen inay amaanayaan ayna isku sheegayaan sida quruxda badan oo wiilkana u dukanayo wiilkii ayaa wuxuu sii dheeray salaadii si aan loo qabanin balse wasiirkii wuxuu ku amray ciidanka inay qabtaan markii uu laba ragcadood ugu dambeeyo markii uu ka baxay labadii ragcadood ugu dambeysay ayay qabteen waxayna u geeyeen boqorkii waxayna u sheegeen boqorka sida quruxda badan oo uu dukanayay iyo inuu ahaa wiil cibaado badan boqorkii ayaa ku yiri wiilkii maadaama aad tahay ruux cibaado badan ayna ka muuqato wanaag fara badan maanta laga bilaabo waxaan ku siiyay gabadheeda hantideedina waan kugu wareejiyay wiilkii isagoo xishood ka muuqdo ayuu madaxiisa raariciyay wuxuu naftiisa ku yiri Allah waxaad isiisay hantidan faraha badan gabadhaana waxaad iga yeeshay nasiib waxaasoo dhan waxaad igu siisay salaadii beenta ahayd aan ku dukanayay bal ka waran Allah hadii aan ku dukan lahaa salaad dhab ah ama cibaadada aan ku qaasili lahaa qisadeena halka ayay nooga eg tahay waxaan ka qaadan qisadan ayaa waxay tahay inaan mar waliba alle isku dhiibno cibaadadana u qaasiyelno waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan haddii aad ka cusub tahay janalka maalmaha fadlan subscribe dheh si ay ku soo gaaraan muuqaal cusub aan soo dhigi doono mahadsanid